صفية تصمم وحالية وادي قال السومالي هو اني همبلينا يايو احتراف كيف انا قال هورت السومالي لان اديق احتراف كاغا ما باهنا صفية سومالي لان اديق احتراف كاغا ما باهنا ودل جري دونا هدنا جره لكن waxa la yaab leh صفية تصمم waliba reer shi isxaaq bay dusha ka saarto mehradeedii ayaga gubay bay leedahay qofku markuu qof weyn yahana hadallada uu ku hadlay inuu ka fiirsada loo baahan yahay oo waxaynu ognahay Safiya Tusmo fiidiyoga markay soo duubaysay inay joogtay Ethiopia waqti xaadirkan Ethiopia ku suganta laakiin Safiya inta ay joogtay maxay mehradeeda u gubay weyday mehrada hadda sama ayada iskale mala ninkii qabay baale kama uusan ahan marka taas waxaanu aragnaa in ay munaafiqanaynayso hadaba sababta sidaas aan u leeyahay waxay rabtaa in dadka boorama degan iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo reer Soomaaliland oo idil inay iska hor keento laakiin Safiya annaga ka diidnay taa وين كوجو عن سيرني واحد عد اتصو التابسي وحلي يرهده باكرة حتى اسكو سو هي ترى هذا أضي كو طالع لكيسه دت كان رير بورما وحن كل شيء جاية ودت سومالي لا اسكله دت كان رير بورما دت تعب جشري ويا سومالي لا أو حين أجنهي إن أذوق أضربته إن حكومة الشعب كأتكوك عيسو ولبا قاسة مدحوينها وقت حاضر كان تشوغه مصبحي عبد الحديد أو ولبا واحد ضربتها غير شي إسحاق إيه هنا إسكار كانتو غير كان سمران لا يراهد تاسنا هدا كو سورتوبي ميش هداد أويدو إيو هداد أوين إيو هداد قصة إيو يا هداد إيك تراهد إيو وحا يسكي لو لكن سقف كوين وحا وناكسن سيابوي كلو waxaa jira wax loo sheego laakiin se anu Somaliland ba ma garanaysaa aqalkayga gubtay iyo mahradeedii gubtay iyo qabiil ayaa mahradeedii gubiyo waxaas waa beenta weeyaan wax alla wax ka jira oo jiro ma jiraan tusaale waxaan leeyahay maayarka magaalada Boorama horta waa nin deegaanka ah waa nin Samaroon برا صاحب كقبل كأوضل وحسن عيد واني جبريل يونس تبلو فرسو تريها قايبتا تواني سمرون تريها عيد ماذا CID ده واني سمرون بل أذوقو بهرجيسا لقاقا سو دولو مهرد دادا اللقبي أقليا وإنو الشقيا صفياي ولو كوكوسي فقام ماي سيد الرقا أنا وقف فقا كوكو فقام ماي ما دام أعطى قف دمرة لكن وحن كل شيء غير إن أنا لو باهنين درالي وحلي راهضو ماشة صفية معها كولومبوس أوهايو دارات كمسكحة وحكاجة صوشبه هل كان وحلي راهضا سومالي لان ماشة شوكتنا وقيب كميدا سومالي لان أهنا قبل كأوض القاصة المجالة بورما haddaad ismoodo inay Boorama tahay deegaan daarood waxaan ku sheegay inayna ahayn deegaan daarood inay tahay wadan Somaliland waliba gobol ka tirsan Somaliland oo ah awdal magaalo ka tirsan Somaliland oo ah oo magaranaysa Boorama hadday daaroodka waxa kugu soo guran iyo daarood jacaylka sida isleedahay wax ku hel adigu hadday cidi wax kugu siinaysa kugu siiso annaga sida wararka sirdoonka inuu ku hayno waxaan halkan ka cadeynaya meesha in aana ma garanaysaa baaritaankeedana la hayo aan la kiise ayna gubin reeraha ay ku eedeynayso ama xukuumadda ay ku eedeynayso Somaliland ama reer Shi Isxaaq ninka reer Shi Isxaaq ee Hargeysa ka soo baxaya mehradaada yare waxba aanan oolin aynu ogeyn faarad inay ahayd lagu sameeyo hurdada oo waliba ninkaagu leeyahay muu hadla ninkaaga waxa loo Safiya cagti joogsa weydo marba ceeb la kulantaa bay tiraahdaa Soomaalidu waayo waa joogsa laadahay inta Boorama aad joogtid ma hadash
maxaa keenay mar alla markaad Itoobiya tagtay inaad hadasho haddii adiga reer shii isxaaq aad nacayb u qabto war annaga uma qabno annagana kula ah Samaroon lamana qabno wadad walaalaha iyaga ah wadan aynu wada leenahay haddii xurguf nii soo dhaxmartay taasna aad daba socoto shakhsi bay nii soo dhaxmartay laakiin reer shii isxaaq oo idilnimo soo dhaxmarin annaga halkan kaaga cadeynayna marka waxaan leeyahay Safiyay aqligaagu ha shaqeeyo meeshana Boorama la yiraahdaa aniga kula hadlay waa deegaankayga saxda umana ogoli inay dhibaato ka dhacdo laakiin cid wax ka maqlaysa baan jirin laanu ninka deegaanka iskala waa aniga inay wax ka dhacana ana diidan way ana Soomaaliland deesara marka qof magaalooyin kala ka soo hayaamay ama ha noqoto in gobolka Awdal qaybo kamid ah ama ha noqoto Itoobiya ama Djibouti in magaalada Booramo deegaankayga ah waliba aan keena xaabada iyo caanaha inuu qof qalalaasa ka sameey marnaba raali kama yahan marka waxaan leeyahay Safiyay in aad adigu isgarato ayaa wanaagsan mehradana cid alla cid ka gubtay ma jirto laga yaabo waxaanu aaminsanahay in adigu heshiis aad la gashay dadka qaar ay aad ku tiri markaan baxo hal la gubo balaygata sida iimka 40 daqiiqo ka hor aan wararka ku hayn sida dadka ay u kacaan maxaa koos gareeyay markaad la kulantay baradho ex-maayirkii hore magaalada Boorama ee magaalada aad ka bixisay iyo mehradan aad sheegaysay ninkaaga oo leeyahay adigu aadan lahayn gubashadiisa maxaa sababay haddii adigu aada ka dambayn aqliga uu inuu shaqeeyaa laakiin in aad reer shii isxaaq aad xagato jamhuuriyaddan barakaysan ee Soomaaliland aad xagato annagu ka yeeli mayno magaceeda buursina ku daaqi maysid meeshana waan ku sheegay ma aha deegaan daarood waayo daarood jacayl baa sida ku haya dadka waa iskaga oo hisaa sida dadka u kacaan wax ma garatada ah oo maanta oo dhanba kacsan aynu ognahay mar waxa saxay kama jiraan tanu dadka leh baale cidna ma eeday kartid Safiyay بكل احترام بلو في صدا بكل احترام هذا دارك جعيل او كوهايو كولومبس او هاي كسو تغيني اسكا فدي oo nima ka mareexan waxay maskaxda kaaga soo shubeen inama ka kale daarood no Boorama kaba shaqeynayso taa adigu maskaxdaada ku hay kicinta dadweynaha aad wadana cid ka yeelaysa baana jirin shalay bay ahayd in cid iska horka inta doonaysa micid baa kugu qabsatay heesaha ee aad qaadaysay ee wali maldahan ee siyaasadaysan adigoo Boorama yimid ma Soomaaliland ba talaabo ku qaaday kuma aysa qaadan marka aan waxba juuq iyo jaaq aan lagu oran sheekada mehradeedii baa la gubay adiguna aadan lahayn marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland qaasatan reer Isxaaq waxaan ka raali gelinayaa gabadhaas afkeeda waxa ka soo baxay raali gelinta si qaasab ugu socotaa reer Isxaaq waxaanu leenahay waa islaan oo la jeed kala leh weeyaan rabta inay dadka ciso laakiin si raali gelin baynu naga siinay in idinku aan ka dambeyn waynu ognahay gobolka cidda ka talisan waa la garanaya taas marka halkaas aan kaga tago dhammaan reer Soomaaliland bariga galbeedna waxaan leeyahay maadaama ay tiri Soomaaliland baa ka dambeysay oo xurrimo ku raadsanaysa aqoonsi dhammaan reer Soomaaliland lixda gobol ee waaweyn ee Soomaaliland shacabka ku nool waxaan leeyahay boqolkiiba 500 eragaas raali ka noqdo waa qof meel kale u socda marka waxaan leeyahay qeyrta meel kasta aad joogtaan aad iyo aad balni salaamaya videogan si qaybiya salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh